Dagaalyahano ka tirsan xarakada Al-Shabaab ayaa xalay weerar culus ku soo qaaday degmada Garbahare ee xarunta gobolka Gado, waxaana si gaar ah ula bartilmaameysteen weerarkooda xarunta Hay'adda Cuntada Adduunka ee WFP, taasi oo ku taasha afaafka hore ee magaalada Garbahare. Inkastoo weerarka Shabaab uu ahaa mid qorshaysan isla markaana ay si weyn u doonayeen inay gudaha u galaan magaalada, haddana waxay iska caabin xooggan kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan halkaas. Dagaalkan ay xarakada Al-Shabaab xalay ku soo qaaday magaalada Garbahare ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, wuxuuna soconayay muddo saacado ah, inkastoo markii dambe uu istaagay kadib markii Shabaab ay dib uga gurteen halkii ay weerarka ka bilaabeen oo ahayd xarunta WFP ee magaalada Garbahare. Si rasmi ah looma oga ka dhashay dagaalkii xalay Shabaab ay ku soo qaadeen magaalada Garbahare, welina kama aysan hadlin saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan Garbahare, halka Shabaab ay weli ka aamusan yihiin oo wax war ah ayna ka soo saarin dagaalkaas. Weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Shabaab weeraro noocan oo kale ah ay ka geysteen magaalooyinka Luuq iyo Doolow oo ka wada tirsan gobolka Gado, waxaana dagaalkaasi ay ku qaadeen habeen hore magaalooyinka Doolow iyo Luuq ay galaafatay nolosha dad shacab iyo ciidan isugu jiro.